kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad naga daawanaysaan halka aan idinkala soo hadlayno waa gegida ciyaaraha ee Konis Stadium inkastoo markii dambe magacyo kala duwan uu yeeshay sida Banaadir Stadium iyo Engineer Iriso sheekada aan halkan maanta ku soo tabin doono waa sheekada la xiriirta garsoore heer caalami Cumar Cartan oo sanadkan loo xushay inuu ka mid noqdo garsooreyaasha wax ka dhexdhexaadinaya koobka adduunka ee sanadkan 2026 ka dhici doona Mareykanka, Mexico iyo Canada. waa garsoorihii ugu horeeyay ee Soomaaliyeed ee loo xushay in uu dhexdhexaadiye ka noqdo ciyaaraha koobka adduunka. sanadkanna wuxuu noqonayaa garsooraha kaliya ee dhexda ka ciyaari doona ama dhexda ka qaban doona ciyaaraha si garsooranimo dalalka bariga Afrika. Cumar Cartan sheekadiisu aad ayay u dheer tahay, halkan ayuu maanta nala joogaa. Cumar Cartan soo dhawow, markii lagu sheegay inaad koobka adduunka aad garsoore ka noqonayso dareenkaagu sidee noqday? waa mahadsantahay horta platformkan iyo BBC-da runtii waa dareemi kartaa garsoore kasta waxa ugu muhiimsan oo uu u shaqeeyo oo uu dadaalo oo raggan hadda maanta ordayaan waxaan ay ugu badan ee u ordaan kaliya ma ahan ciyaaraha waddanka iyo ciyaarahan inay qabtaan waxa waaye qof kasta wuxuu jecel yahay World Cup inuu tago. marka in qofka uu tago World Cup oo lagu daro oo selectionkaas loo sameeyo wax fudud ma ku imaato, marka dadaal dheer ku imaata. markii lagu darana waxa dareemaya ina dadaalkaagii waxa sameynaysa ee sax ahaayeen. marka ani ahaan Cumar ahaan waa runtii aad iyo aad u farxay. kaliya aniga kuma farxin dadkii familkayga, dadkii Soomaaliyeed, dadkii dadaalkii galiyay xiriirka dhalinyarada Soomaaliyeed oo maaragtay aaminsanaa in maaragtay qof Soomaaliya uusan meel sare gaari karin, kulli oo ku farxeen diilo fiican oo noqotay in maaragtay qof Soomaaliya oo ka qayb gal ciyaarahaas. Cumarow, wada dheer bay ahayd inaad halkan soo gaarto. waan ognahay xaaladaha iyo duruufaha Soomaaliya ka jira gaar ahaan magaalada Muqdisho. caqabadihii aad la kulantay muddadii aad wadadaas soo haysay 2 iyo 3 hadda nooga sheegi lahayd. wallahi niyahow horta garsoorka asaga maalin kasta caqabad joogto ah, ciyaar kasta ayada caqabad joogto ah. mana ugu sii jirto Soomaaliya oo Soomaaliya like garsooreyaasha kala adduunka waxay haystaan oo dhan anaga ma haysano kulli totally, sababtoo ah anaga ciyaaraha without VR ku qabanaa. waxaa laga yaabaa garoonkan hadda maanta ku tababaranayno in maaragtay si joogto ah aan u heli karin ilaa maantadan oo kooxo ay ku tababartaan maaragtay maalin difaac anaga ku tababarano. marka 1 iyo 2 garoon aan leenahay meesha adduunka. halkii magaalo laga yaabo 19 garoon inay ku taalo, anaga Soomaaliya Muqdisho kaliya 2 garoon oo fiican aan ku taalo, garoonkan iyo garoonka Stadium Muqdisho. marka mid kale jaamacadaha laakiin qofna aan isku training gareenin. marka caqabadaha zaid ay u badan yihiin, especially marka tahay qof magaaladan ku dhashay, ku soo barbaaray, meeshan wax ku bartay. runtii wada caqabadaha iyo waxyaabaha sadda kale ku sheego maanta dhama dhamay kari, laakiin alxamdulillah caqabadaha iyo waxyaabahaas waxa igu dhiirigeliyay horena EC push gareeyay, EC riixay heerkan ina gaaranay igu dhaliyo waaye. xiliyadii aad garsoorka ku soo biiraysay inkastoo aad u yarayd, haddana Muqdisho waxyaabaha aadka uga jira waxaa ka mid ahayd falalka amni darrada, tusaale ahaan qaraxyada. waxaad imaan jirtay garoomadan 2 garoon ee hadda aad ka sheekaynayso. sidee ku soo gaari jirtay caqabadaha dhinaca amniga? wallahi horta alxamdulillah ilaahay amnigan hadda uu na siiyey oo kala ma jiri jirin. waxaa xasuustaa maalin anigoo meeshan tababar ku leh oo soo socdo wuxuu qarax ka dhacay I think xabar weyne meeshan dhankan. marka wadadii aan soo mari lahaa qarax ka dhacay. marka ma ka laabanin aniga bulxubay waagaas deganaa, ma ka laabanin. waxaa ka soo galay kor ka soo wareegsaday. waxaa xasuustaa meeshana imid uuradii oo xagga ka looga jeedo meeshan ku tababaranayay. marka waxaas anaga xamar daanahay waxaas waxay nala ahaayeen wax easy ah, laakiin adduunka markii la eego wax fudud ma ahan in meel qarax oo at least wax yar u jiro ka dhacay in lagu tababarto, waliba tababarka caadi loo sii galo, loo sii wato. marka waxaas waxay ahaayeen maxaa la yiraahdaa alxamdulillah ka soo gudubnay, laakiin dhibaato badan oo jirtay ahayd, especially marka u dambeysay oo kaleeto in maaragtay qaraxyadii wixii sii bataan. dadka qaar ay ku dhahaan waddankan sidaana ma sii joogay, ma
ma albitar ka qabane ma wax ka noqone ma saanka yeele ma u laabane dadka qaar inay ku dhahaan oo maaragtay runtii anigana waxaa iga gooneed in wadankan wax ku bartay garsoorka ka noqday inaan joogo anagoo wadamo badan maaragtay heli karay inaan garsoor ka noqdo oo maaragtay dhalashadooda qaato oo tago oo maaragtay ama aado alxamdulilah meeshana maaragtay inaan u dadaalo heerkanna ka gaaro qorneed aniga iyo macallimiintayda iyo asxaabtayda dhanna aan isku kaashanay in maaragtay qof Soomaaliya uu heerkan gaaro. yoolkan inaad soo gaarto waddan dheer baad u soo martay waalidka ka waran sidee ku arkeen markaad tiraahdo waxaan rabaa inaan garsoore noqdo ama aan garoonka tago waddadiina qarax ka dhacayo oo ay og yihiin khatarta waddada ka jirtay? Wallaahi horta familka waxa ugu horeeya dadka ugu horeeya waaye oo cunugooda jecel wanaagiisa marka aniga hooyadii waa maqan tahay aabahayna Allah u naxariisto mar hore u dhintay marka ciidan anaa u weyn oo anaa meesha ka ah kaabe marka wallaahi hooyo marar badan ay maaragtay igala talisay igu waxeysay igu dhiirigelisay ilaahay khayr ha siiyo laakiin aniga qof kastoo idhaha ka joog qofka wuxuu jecel yahay uu rabo inuu meel ka gaaro horumar ka gaaro waxaa waaye way adag tahay soo uga joogo marka qaraxyada iyo dhibka iyo dagaalada iyo fadqalalada iyo waxaasoo dhan waxaa aniga kala mid ahay dadka Soomaaliyeed oo ayaga ka tirsanay waxay qabeen la qabay marka alxamdulilah haddana waa kana I'm running. jacaylkaas markaan ka hadlayno goormay kugu dhalatay inaad garsoore noqoto ama aad ciyaaraha dhexdhexaadiso? Wallaahi aniga iskuulkayga markaa dhameynayay oo ahayd 2013 xilliyadaas waxaa sameyn jiray dhacdooyinka ugu horreeyay garsoor aan ku noqday waxay ahayd anoo koox la jiro mar lugtaa wax yar iga soo gaaray marka ciyaartii ka fadhiistay marka ka fadhiistay qoladii u bixinay waxay tiri ninkaan ciyaarta noo qabanayo qoladii anaga u bixino opponentskeena ahayn ninkaan garsoor noo qabanayo waad qaana xaafadaha ku dheeli jirnay technically xaafadaha waa la isku qaraaraya mararka qaar footballka waxa ka jira wax la yiraahdo qaraar marka qoladii garsoorihii ku murantay kadibna anaa u qabtay like saasay ku bilaabatay xaafadaha inaa ciyaaraha ka qabto garoonka xaafadeena ka qabto kadib garoon Djibouti la dhaho iskuulkii aadamiye ahaa wadajir ku yaalo garoonkaas ka soo bilaabay inaa si ciyaaro rasmiya oo kooxo ciyaartoy Serie A Serie B ee dhiilayaan inaa qabto oo tartamada Ramadaanka oo kaleeto aan ka qabto dhowr mar kadibna anoo iska joogo oo like maalin waxaan u yimid Ilaahay u naxariistay nin la yiraahdo Cusmaan Jaamac Dirac oo aniga aabahayga garsoorka ah ninka la'aantiis Ilaahay ka sokow aanan noqon lahayn garsoor caalami iyo garsoor caadiye iyo garsoor World Cup iyo oo Ilaahay dhintay hadda waa la dilay Soomaa waa la dilay Ilaahay u naxariisto marka ninkaas dilkaasi see ku saameeyay marka dilkaasi dhacay? Wallaahi it was hard like waxaa la dilay waliba August 2017 anoo markaas waxaa ka dhineed inaan caalami noqdo I think 3 bilood 2 bilood like August 2018 January waxaa noqday caalami marka isagoo caalami like diyaariyay inuu iga dhigo like ya maaragtay gudoomiyaha garsoorkan xilligaas ahaa rabayna inuu maaragtay aanan jeclaan lahaa maanta inuu arko like meesha soo gaartay qof Soomaaliya uu meeshan gaaray especially aniga gaaray sababtoo waxa ogahay sida uu maaragtay ugu dadaali jiray in maaragtay dadkeena ay wax noqdaan garsoorkeena uu wax noqdo kaliya gudoomiye garsoornimo ma ahayn wax walba noo ahay aabbo noo ahay like waxa xasuustaa inaan sheegay qasab waxa xasuustaa like hadduu garsoore u yimaado oo xiriirka joogo oo meel fadhiyo oo like meel joogo wuxuu dhihi jiray wariyaa ma qadiis wax ma cunta waa cuna xataa haddaa dhahdid markaa yeeli jirin uu gacanta ku soo qabto wuxuu cunayo muqaayadna gee jiray especially like garsoorayaasha yaryar oo aan markaas waxba aanan maaragtay marka dee wuxuu ahay technically aabbo noo ahay marka Ilaahay u naxariisto. Marka ma ka niyad jabtay markaas garsooranimada? Wallaahi niyow murug iyo oohin iyo like iyo niyad badan aniga meel ku istaago inay jirto ma joogin marka qof hadduu dhintana anaga maalin walba waxa soo joognay dad dhima jiray oo like
inkastoo uu so close noo ahay annaga haddana maxaa la yidhahdaa inaa garsoorka ka joogo wax iga joojin karay waqtigaas iyo haddaba ma jiraan aaminsanahay tii alle leh maahane. waayahay aan u soo laabano garsooranimada hadda muddadii aad dhexdhexaadinaysa ciyaaraha gudaha iyo dibadda tee kuugu dhib badnayd intaa? ciyaaraha ciyaar kasta way dhib badan tahay oo dhibaatadeeda iyo waxay wadataa iyo fadqalaladeeda iyo maadaama cadaalad la raadinayo cadaalad aan samaysay cadaalad ay tahay especially wax kastoo cadaalad laga raadinayo aa dhib badan marka waxaa laga yaabaa mararka qaar inaad qaladaad gashid mararka qaar waxaa laga yaabaa inaad qaladaadka aad gashid koox dhan ee saameyso. alxamdulilah hadda waxaaba yimid VAR oo ciyaaraha dibadda aan ku qabano oo mostly ciyaaraheena badanaa Afrika iyo adduunkaas kaleba lagu qabto inkastoo nasiib darada jirta Soomaaliya aan lagu qabanin oo like dhaqaale darida iyo waxaas ay saamaxayso marka laakiin hadda waxaa haysanaa meel loo fakado agab idin caawinaya hadda la haystaa sida hore oo kale ma ahan laakiin Soomaaliya oo kaleeto waxaa jira maxaa la yiraahdaa murano badan oo ka dhasho mararka qaar waxaana maxaa loo qalday waxaan maxaa loo sameeyey hadda daa dhaho ciyaarihii ugu adkaay oo kaleeto aa qabto waxaa ka mid ah qofku markuu yar yahay Semberi markaas ugu dhib badan ciyaaraha uu qabanayo oo khibradiisu yar tahay ciyaar garoonkan aan ku qabtay waxaa xasuustaa Genyo iyo Hagen oo 3 iyo 4 ku dhamaatay waxaa u maleynayaa ciyaarteedii ugu horeysay oo ciyaar weyn ah ay ahayd maalinkaas ninka hadda kuu sheegaya dirac dhabarka inta iga soo dharbaaxa yidhi nihow ciyaartaada kuugu horeysay testigaaga kuugu horeeyey waaye gal inkastoo hal ciyaar ka hor aa qabtay oo MCC iyo koox kaloo la dhihi jiray ayagana banaadir waqtigaas banaadir sports club la dhihi jiray MCC hadda iyo koox kaloo la dhihi jiray xilligaas Muqdisho City Club miya xasaasa aa qabtay tan ay ugu xigtay marka oo ciyaar weyn ahayd marka Genyo iyo waqtigaas iyo Hagen labada kooxood wadanka ugu weyn ahaayeen marka way kugu adkayd ciyaartaas side 4-3 ku dhamaatay aniga experience badan ma lahayn laakiin maxaa la yiraahdaa garsoore fiican ahay laakiin garsoore fiican iyo garsoore experience leh labay kala yihiin marka fiican tahay oo aad experience lahayn iyo marka experience iyo fiicnaansho isku darsatid waxa waaye two different things way totally. عمرو Soomaalida kaliya iyo Soomaaliya kuma ka muranada ciyaaraha waad ogeed finalka hadda ugu dambeeyay koobkii African Cup of Nations ka in ciyaartii finalka ahayd ee Senegal iyo Morocco wixii ka dhacay ciyaaraha Afrika iyo ciyaaraha caalamiga inta dhexdhexaadinaysay iyaga kuwa kugu adkaa wallahi niyo ciyaaraha Afrika aniga alxamdulillah recordkayga iyo maaragtay iyo waxa cadeynayo iyo maaragtay hawsha aan qabto Afrika weligay iyo leeyahay intaas Afrika qabanayay qof kasto bilaadan qalad galay laakiin qalad wax saameeyay oo liiga daba marmay oo dhibaato ay ka dhacday weligay leeyahay ma galay alxamdulillah ilaaha ma hadda iska leh ciyaar dhib badan oo foodo badan oo wax badan hadda dhaho ciyaar badan way iska jiraan laakiin misdahay ciyaar like maanta saas u adaga jirto Afrika sawir aad loo soo qaataa jira baraha bulshada adigoo ciyaartooy aad isaysataan marka qarkood gacantaada ay ka muuqato qoortiisa sawirkaasi muxuu ahaa maxaase dhacdadaas dhaliyay niyo sawirkaas sawir fake ah waaye I think dadka inay maanta maqlaanna aad ina meesha naga faa'iideystaan rabaa dad badan waxaa jira soo qaato mararka qaar sawirkaas sawir been abuura waaye totally ay ayaga sameeyeen dadka waqtigaas ka careysana natiijada ciyaarta marka dad badan oo ku sirmay oo Soomaaliya jiraan oo soo qaatay oo waxana hadee sax yihiin video laga keenaa oo videoga dadka la tusaa oo marka dadkaas waxa leeyahay ama videoga dadka ha tusaan ama sawirkaas fiiga isticmaalkiisa iska daayaan sababtoo ah wax been abuura oo maaragtay waxa waaye aan saliiraad lahayn oo lagu sameeyay qaabkan dadka wax u sameeyaan kulanka laga soo miinguriye kulankee ahaa Algeria iyo Mauritania waa kugu adkaa Soomaha kulankaas kulan xamaasadiisa aad u badneed bay ahayd waayahay koobka adduunka haddaan u nimaano maskaxan iyo jir ahaan sidee ugu diyaar garowday runtii hadda waa arkaysay tababarkii aan waday subax kastana meeshaan ku alameeteeyaa oo subaxyada badanaa aad joogaa marka koobka adduunka inaa u diyaar garowdidna ciyaar ahaan jir ahaan maskax ahaan aqoon ahaan
wax yar ma ahan sababtoo garsoorayaal badan oo world class imaanaya oo heerka ugu sareeya adduunka ah marka in kuwaas wax lala qaybsado meeshay joogaan meel ka sareysa la tago like hamigeyga iyo hidadiiladeeda midaas waa magaca Soomaaliyeed inaa geeyo meeshaas dadka dunidana tuso qof dadka Soomaalida ah in maaragtay number 1 cadaalad ay yihiin nagaad waxyaabaha nagu dhibka badan oo Soomaaliya la yiraahdo dhibaatada naga haysato waxa way cadaaladda like systemkeena cadaaladda iyo inay bulshadeena is aaminsaneen la yiraahdo like Soomaaliya cadaaladda ku yar waxyaabahaas marka in maaragtay dadka cadaaladda aan barno oo cadaalad sameeyno Soomaalidana looga daydo maaragtay hadda wixii ka dambeeyo dhankaas cadaaladda waaye maaragtay fikirkeyga cumaro isla koobka adduunka iyo ciyaaraha kale aad qabataba sida caadiga garsooraha waxaa cadaadis badan u kaga yimaada ciyaartooyda macallimiinta mararka qaarkood xitaa taageerayaasha sidee culaysidaas ugu babacdhigtaa wallahi niyow anaga waxaa leenahay hadda project World Cup oo kaleeto waxaa leenahay waxyaabo badan oo garsoorka ku saabsan oo sida in garsoorayaasha ay leeyihiin psychological tests inay maraan in maaragtay dhaqaatiir ay leeyihiin in garsoorayaasha badanaa lala sheekaysto in like waxyaabo badanaa jiraan oo projectiya ah oo garsoorayaasha lagu caawiyo si maaragtay sax waaye waxyaabo badan mararka qaar waxaa dhacayso ciyaar in aad oo qabanayo aad maaragtay ciyaarta qalad kaa dhaco qaladkaasna ku saameeyo ciyaartaas inta ka dhiman iyo ciyaaraha xigaba marka way adag tahay laakiin alxamdulillah anaga maadaama islaan iska nahay quraankeeni waxayna iska akhrisano maaragtay ciyaaraha sidaas ku galan ilaahina waa noo fududeeyaa alxamdulillah koobka adduunka foodu lagu soo hayaa inkastoo aan weli go'aan laga gaarin garsoorayaashu sida ciyaaraha u qabanayaan ciyaartay jeclaan lahayd inaad dhexdhexaadiye ka noqoto wallahi ciyaar kasta oo guddigay ugu qoraan ciyaaraha koobka adduunkana waxaa waaye waxaa la isku qoraa ciyaarta markay 5 bari ama 4 bari ama week ugu badnaan week uu ka dhiman yahay marka traininada kadib aan la isku qoraa qofka duu caafimaad qabo fid yahay marka insha Allah waxaan rajaynayaa ciyaaraha ugu fiican ee qabto ilaahay diira noloshaadii xirfadeed ee ciyaarta inaad garsoore ka noqoto heerarkii ay soo martay ilaa maanta aan ka hadlayno in koobka adduunka aan taagannahay waxay kaaga dhigan tahay والله إنه الحمد لله أنيقا نولل أو خايا مكسو كورين نولل إسكا أوكي أكسو كوري صوبت أساس أولي يعني وحاواي قف كستو دلنيراء وحاجر ضد بدنو دلنيراء هو إصلاحايا نكان هيرك جاري أما هيركان جاري وحلقيا وفملكيسيني العقل هايين وحلقيا وددكيسيني العقل هايين وحلقيا وإن قبيل كيسي وحيسي عاويين وحلقيا dad badan oo saas isdhihi karaa jiro waxaan rabaa inaan u sheego in maaragtay aniga dadka familiyada ugu hooseeyo inaa dad aan ka imid ka soo baxay kadibna maaragtay waxbarashadeeda ku dadaalay ilaa iyo maaragtay heer jaamacadeed anoo iskuulkeyga dhiganayana in maaragtay garsoorkan aan soo galay ilaa maantana aan ku jiro meel wadankana meelna aan uga bixin meelna aana aadin meesha keliya training ku sameynayay meeshanay ahayd wax xasuustaa waagaa traininka bilaabay oo ninkaas diraac Allah u naxariistay oo noo imaanay wuxuu nagu soo waday iskuulkeena wuxuu naga soo waday I think 12 qofood 13 qofood adiga dad tobaneeyo kor u dhaafay naga soo waday dadkaas waxaa ka soo haray aniga bas iskuulkeena I think 2 months 2 bilood meelahaas aan u maleynaa inay wixii kala baxeen markii arkeen in meesha lacag laga qaadanayno la imaanayo oo heer like ka nimaano boolxubey meeshan mararka qaar lu ku imaaday jiri jirtay marka wax kastana adduunkan marka helaysid waa inaad sacrifice sameysaa oo like waxyaabo badan aad ka tagtaa inaad ka tagtid mararka qaar like raaxada iyo maaragtay si aad biri u raaxaysatid marka wax kasta qofka rabana waa loo daalaa waa loo rafaadaa waa loo halgamaa si dheedheela qof wax kuma helo wixii dheedheela ku heshidna wax weyn maba ahanbo marka qofka inuu dadaalo waay marow Soomaaliya sidee ku soo saari kartaa garsoorayaal heer caalami ah sidaas oo kale ah walaahi horto waxaa zaid u amaana xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta sababtoo ah dad badan oo hadda waxaa jiro oo maaragtay u haysto in systemka garsoorayaasha lagu soo saaro uu system kale yahay xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagta waxa ugu
ugu cadaaladsan ay sameeyaan waa garsoorkan hadda meeshan waxaa arkaysid qof kasto asagaa yimid ama dad meel laga soo waday iskuulaad laga soo waday ama dad ayaga inta maaragtay la diray la dhigay social mediaha soo codsaday oo emailada kasoo jawaabay kadibna waxyaabo badan oo itixaamaada laga qaaday kadibna sidaas garsoorka ku soo galay waaye marka dadka hibada iyo talentiga leh haddii ay garsoorka soo codsadaan ee soo galaan xiriirka Soomaaliyeed I think dadaalka uu aniga geliyay garsoorayaasha kale oo ila shaqeeyo oo ayagana maanta heerkan inay gaaraan mudnaayeen laakiin nasiibku u saamixin heerkaas oo kale iyo heerka fiican inay gaari karaan aaminsanahay haddii dadkaas yimaadaan soo codsadaan garsoorka codsi kaliya ma ahan dadaalaan meeshan marka ugu horeysa imaanaysid waxaa laga yaabaa inaad rafaadid waxaa laga yaabaa wax baawur ku soo raacday inaan lagu siinin waxaa laga yaabaa qarash iyo waxyaabahaas oo dhan iyo inaad maaragtay ishilmaamtiin laakiin kadib markii aad maaragtay heer fiican gaartid raaxaysane meel kasta lagaa soo wacaa laga yaabo ciyaartan adoo jira in ciyaar kale lagu soo diro lagu dhaho ciyaartaas kale noo imow Afrika iyo meel kasta iyo dunida marka in dadka garsoorayaasha waliba dadka da'da yar oo hibadaas jecel waxaa ku dhiirigelinaya inay xiriirka maaragtay yimaadaan haddana mid kale annaga dhibaatadan ay haysato garsoorka yar runta markii la sheego oo garsoorka ciyaaraha qabto marka ugu dambeyntii taariikhdan ay hadda Soomaaliya samaysay oo ah in garsoorihii ugu horreeyay uu koobka adduunka tagi doono fariinta dadka Soomaaliyeed u diraysaa maxay tahay walaahi horta dadka Soomaaliyeed aad ugu mahadcelinaa garabkooda ducadooda iyo garab istaagooda xilli walbo ii soo duceeyaan runtii aniga keligeyga nafsadeedana ma matalo marka ciyaaraha ku jiro marka dhacdooyinka badana maxaa la yiraahdaa la macaamilayo waxaas oo dhan waxaa ka fiiriyaa Soomaalinimada iyo inaa Soomaaliya matalayo magac fiican ku matalo oo maaragtay heerka ugu fiican iyo dadnimada ugu fiican iyo personality ugu fiican ku matalo wadankeenana waa ogtahay qof Soomaaliya awal markii la arko waxa la dhihi jiray ninka Soomaaliya muu ka yimid ninka ma cadaalad ku sugeynaa waa perceptionka adduunka naga haystay ahayd haddana maanta heer waxaa maraynaa annaga ciyaaraha ugu waaweyn oo dhan noola dhiiba Afrika alxamdulillaah heerkaas maanta garsoorkeena uu joogaa marka wax dheedheel ku yimidna ma ahan waa wax dadaalka macallimiinta iyo maaragtay iyo dadka aniga iga gadaal shaqeeya iyo saaxiibadeeda calanhayaasha kulli maaragtay ila leeyihiin marka iyo dhiirigelinta dadka Soomaaliyeed iyo ducadoodaba marka sidoo kale waxaan rabaa inaan uga faa'iideysto meeshan inaan u mahadceliyo dhammaan macallimiintii soo garab siisay iyo familkayga iyo waalidkayga iyo instructoradii iyo dadkaas oo dhan oo ugu horeeya macallinkayga Cali Saciid oo ah nin aad ii soo garab qabtay keliyana macallin sidoo kale aanan ii ahayn asagana sidoo kale aabbo oo kale ii ah iwaani jiray waxyaabo badan oo maanta haddaa sameelaha aanan heerkan joogi lahayn iga waaniyey iga celiyey marka laantiisna ilaahay ka sokow ana meeshan imaalahayn iyo macallimiintayda kaleeto iyo guddigii garsoorka iyo dhalinyaradan ila shaqeyso dhammaantood oo aan jeclaan lahaa inaan meesha ugu sarreysa isla tagno insha Allah laakiin World Cup-yadan soo socoto arjayna insha Allah dad badan oo Soomaaliya inay wada tagaan ilaahay hadduu yiraahdo marka dhalinta Soomaaliyeedna si gaar ah dhalinyarada jecel inay maaragtay hormaraan hibadooda meel sare ka gaaraan wax qabsadaan qof meel maaragtay dad meel ka soo jeedo oo identity leh oo Soomaali la yiraahdo oo ku suntan dadaal iyo howlkarnimo iyo dad wanaagsan iyo maanta adduunkan waxaana uu naga aaminsan yahay oo Soomaalida saan waay waxyaabaha xun Soomaaliya laga sheego oo lagu caayo dadka bedeli lahaa dadkeena dhalinyarada ah dadka u badan waaye wadankeenana waa aragtay siyaasiyiinta marka ay wax rabaan inay sheegaan ama dhalinyarada wax ka rabaan waxa ugu horeeya dhahan waxa waaye dhalinyarada wadanka u badan saan waaye marka in dhalinyarada waxaan kula talinaa qofkii rabo horumar in uu ka leexdo waxyaabahan xunka oo dhan inuu qabiilkan iyo siyaasiyiintan aan waxba laga helaynin oo daba ordaayaan iyo waxyaabahaas inay ka tagaan dhalinyarada saraxa sababtoo ay waxay u goynayaan biri ma jirto qof maaragtay inta qabiil qabtay meel ku tuuray geeyey ma jirto waxa qofka ugu badan oo maaragtay ay u sameeyaan waxay tahay in maalinkuu dhinto lacagtiisa ay qaataan ama waxyaabahaas marka in waxyaabahaas oo dhan iska hilmaamaan Soomaalinimada inay number 1 ka dhigaan
dadaalkooda iyo nafsadoodana ay ku kalsoonaadaan ayna dadaalaan waxyaabahan kaleeto maalaa yacniga TikTok iyo hebalow iyo waxyaabahaas ay dhalinyarada inay caan ka noqdaan si xun caan ku noqdaan rabaanna inay iska daayaan in qof kasta hibada uu jecel yahay kii wax baranaya kii raba engineer inuu noqdo kii raba inuu pilot noqdo kii raba inuu footballer noqdo kii raba inuu garsoore noqdo kii raba dhakhtar inuu noqdo qof kasta wax wadanka anfacaya inuu noqdo rabo inuu mihnadaas uu buriyo si walba derbi uga hor imaado si walba wax uga hor imaado you can never stop so inaa socotid oo maaragtay qof kasta wuxuu rabo uu gaari karaa conclusionka marka saasaa dhalinyarada kula talinaa kuna dhiirigelinaa xasuusinaana I think inay og yihiin qof kasta inuu og yahay laakiin waxaa laga yaabaa inay hilmaamsan yihiin marka taasaan xasuusinaa cumar waa mahadsantahay aad iyo aad